Asalaamu calaykum, waa Yuusuf Shire, isku soo noqod wanaagsan. Inkasta oo toddobadii sane u dambeysay aan ku dhex jiray barashada cilmiga siyaasadda, misena kama hadli jirin oo siyaasadda Soomaalida, halbeega lagu miisaamo kafadaha iyo sida Soomaalida u falanqeyso ayaan markasta u arkayay in aysan dheelitirnayn, laguna dabaqi karin aragtiyada iyo siyaasadda caalamiga ah ee jaamacadaha iyo meelaha kale lagu hayo. Hase ahaatee, waxaan maanta eray iyo laba ka oranayaa wixii Muqdisho ka dhacay Sabtidii 25 bishii toddobaad, tegistii Khayre iyo halka uu waddanku abbaaray. Waxaanan isdul taagi doonaa 5 qodob oo iila muuqda inay yihiin qodobo xasaasi ah. Qodobka koowaad, waqtiga. Dhaqankii aan sharciga ahayn ee Khayre lagu casilay, inkastoo cid sharci dhowrta aysan jirin Soomaaliya, runtii waxa uu ku soo aaday waqti aad xasaasi u ah oo kala guur ah. Doorasho loo hanqal taagayo, cudurro guud mar ay jiraan, dhaqaale xumo baahsan ay jirto oo Soomaali badan ay ku waayeen xanibaadaha uu kalifay cudurkan coronavirus iyo forex. Waqtigu sidoo kale waa kan abuura xaaladaha jaangooya dhacdooyinka, runtiina na tusay inta dhumucdeedu ahayd shaqadii iyo kalsoonidii ay wadaageen Farmaajo iyo Khayre. Siyaasaddu saaxiib iyo cadow joogtaa midna ma lahan, khaasatan mar haddii sida Soomaaliya aysan jirin xisbiyo ku salaysan afkaar ideology iyo duruufaha xaaladaha siyaasadeed waddanka oo aan fadhiyin. Qodobka labaad, dhuusamareeb. Qolyaha ka falanqooda siyaasadda iyo warbaahintuba waxa ay ku fashilmeen inay noo taxliiliyaan nana tusaan sawirka guud iyo daaha gadaashiisa waxa ka socda, khaasatan shirkii kusoo gabagaboobay dhuusamareeb. Waxa kaliya ee nala ku daaliyay safarada, socodka iyo khudbadaha hogaamiyayaasha Soomaalida. Waxaanse iyadana u daynaynaa in maalmaha soo socda ay soo shaacbaxaan. Waqtiga ayaana daaha ka qaadaya su'aalaha badan ee ku gadaaman shirkii dhuusamareeb iyo silsiladda isku soo xiran ee natiijadeedu uu Khayre eersaday. Isla madasha dhuusamareeb ayaa mar kale la rajayn in la isugu tago bisha soo socota August kala barkeeda, taas oo lagu go'aamin doono halka loo hayaamiyo iyo nooca ay noqon doonto doorashada ka dhici doonta Soomaaliya. Qodobka saddexaad, doorasho. Doorashada oo ah laf-dhabarta khilaafka siyaasadda Soomaaliya iminka ku kiciya heerkulka ayaa ah qodob xasaasi ah oo isna mudan in la isdul taago. Waxaa la hadal hayaa in laba mid noqoto doorashada soo socota, mid qof iyo cod ah oo keensata in muddo kororsi loogu daro dowladda hadda joogto, iyo in la qurxiyo oo make up loo marmariyo qaabkii aan awal wax ku dooran jirnay, sida iyada oo la kordhiyo tirada dadka dooranaya xildhibaanada. Qodobka afraad, Khayre. Jidku toobiye, waddadu talaalnimo, dadkuna aabi hooyo. Iscasilaadiisii waxay ahayd maalgelin weyn oo mustaqbalkiisa siyaasadeed u noqon doonto dayr, khaasatan fahamka uu fahmay in waqti adag lagu jiro, waddankuna u baahan yahay in loo turo. Waxa suurtagal ah in ay taasina xigto in uu asaaso xisbi oo ay hashtag-yada ammaanaya adeeg, hiigsi iyo horumar oo sidii daadkii qulqula baraha bulshada. Waxa kale oo iyadana isweydiin mudan, haddiiba uu Khayre mucaarad noqdo, mucaarad nooceeya ayuu noqon doonaa. Qodobka u dambeeya, ra'iisul wasaare cusub. Qodobkan ayaa ah qodobka ugu xasaasisan qodobadii aan soo sheegay. Waxaan isweydiin mudan, ra'iisul wasaare noocee ah ayuu soo dooran doonaa Farmaajo? Ma nin karti u leh inuu salka dhulka u dhigo siyaasaddan rablaynaysa ee daruuraha iyo cirka isku shareertay? Ra'iisul wasaarahaas oo la fadhiista mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada, iskuna keena madaxda Soomaalida oo aad u kala fog. Mise Farmaajo wuxuu keenin mid yeesmaan ah oo xaaladda mugdigu ka muuqdo oo la cakirnayd sii xumeeya. Ugu dambeyntii, dadka iyo dalkuba in loo turo waxna la xeeriyo ayay u baahan yihiin. Odayayn iyo wada hadal iyo is-afgarad ayaa lagu gaari karaa awoodda oo la qaybsado, awoodda oo si nabad ah la isugu wareejiyo. Oo maanta ma mudna wixii 20 sano la soo dhoodhoobayay in dhulka lagu sii daayo. Ilaa aan ku kulmi doono xalaqo kale oo aan ku falanqeyno siyaasadaha waaweyn iyo masiirka ummadda, waa Yuusuf Shire oo idin leh isma dhaafin. Fadlan subscribe, share and like, lana sii wadaaga asxaabtaada. Assalaamu calaykum.